waxaan ku dhibanahay haasaawaha baraha bulshada gaar ahaan Facebook qof kasto aan message-ka aan kala hadlo ima soo jawaabto erey ka macnaya u qoraa hashukaansi tagin adigoo aadan wadin qodobada aan ku sheegi doono ma ku dhiban tahay in baraha bulshada aad ku sameeyso haasaawe isla markaana tiro dhowr shay lagu daadiyo ma jeceshahay in aad kasbato ama aad soo jiidasto qof aad ka calmatay baraha bulshada waxaan ku sheegi doonaa haduu ay biraahdo qodobo ku saabsan isla markaana qaabka loogu haasaawo baraha bulshada marka hore saaxiibo raadi add friends noqo qof degan oo macquul ah raadi saaxiibo add friends markii aad qof ku darsato oo baraha bulshada inta ku jirto qof ku darsato waxay ka saacideysaa in aad yeelato saaxiibadaasna aad la sheekaysato dabadeedna ay niyo dhaxmaraan haasaawe ama shukaansi kadibna aad isfahantaan dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa ka faa'iiday isla markaana ka guursaday iyagoo maray wadooyinka aan sheegi doono noqo qof dabacsanaanta qofka bini'aadamka waxay ka saacideysaa in uu dardargeliyo isla markaana uu ka gungaaro hiigsiga ama hamiga uu leeyahay noqo qof degan oo macquul ah haddii qof degan oo macquul ah tahay waxay kuu suurtagelinaysaa inaad hesho isla markaana aad ka gungaarto hamigaaga iyo sidoo kale waxyaabaha aad doonaysid waxaad ka fikiraysid inaad aamintid haddii aad aamintid waxyaabaha aad ka fikiraysid taasi waxay kuu suurtagelinaysaa inaad ka gungaarto mustaqbalkaaga isla markaana xiriirkaaga aad sii weynayso taasi oo kuu suurtagelinaysa in mustaqbal iyo sidoo kale ayatiin wanaagsan ay yeelato muuqaalkii koobnaa oo aan kaga hadlaynay arrimaha ku saabsan haasaawaha baraha bulshada waana inta naga fil muuqaalo kale oo sidan oo kale ah annagoo la jaan qaadan doona aaladda casriga ah iyo sidoo kale haasaawaha internetka